حرير ويعني حرير ويعني أنا بالتكنيكال أساس كل جنوب لكن له وزير كان هاي أن أدور فرسان وتدمر سقط الصومالي ماشي جوت أرضي برنامج وصدان تكون الصومالي أو صومال جواني وحيد الجينية سكسس حيد الجينية سكسس حكيت الجوني سا وواحد من قبطان صوماليا ذلك الجنوب يدك زبد الجنوب لا جنوب إنترست لغة صومالي أنا بقولها يسبدل كذا ماشى سيكون وزير كذا سيدورة نفسنا الماشان الفكرة عن بدرهم هان فافينتا يو هذون دونا ماشى حنو ما إن كل وزارة ورفافينتا يوغندا إن صوماليا عرفت إني هو جذبته ديجيتال تكنولوجيا مهم ده أول أنا ما ماشى هيك وحلاقي جود بياد from analog to digital technology هذه ضد إذا كمية IT برتنا وحين غنيسة فرصة لو بهاي ماشي أنا كفايسنو مرك أنا هذا الكوسي ديرانين أدبا وما سنتي ما تنك وقت ذنب أي تهاي رمضان أي تهاي thank you again وإنكم على العلة وحين كسود وين وزيرك أدي أو ما سنتين dambeedona marka horeeta anagii ayaan waxaan u gudbin doonaa warbixin qaabka halkii arday ahaan halkan marayno horumarkii aan gaarnay iyo barnaamijyada kale oo u socda ardayda ururka ardayda Soomaaliyeed marka hore waxaan hadalka siinayaa gudoomiyaha ururka oo warbixin ka sii doono gudoomiyaha halkii SSU u gaaray iyo waxyaabaha kala duwan ee qorsheysan iyo howlaha uu qabanayo gudoomiye kusoo dhaw wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya mudane injineer cabdiraxmaan Ismaan Yariisow aad baan caawa ugu faraxsanahay inuu halkan nagala soo qayb qaatay caawa oo waliba asiga uu codsaday in uu arko ama uu la kulmo ardayda ku nool wadanka Uganda sababtana waxa weeyaan in ay yihiin ayuu og yahay wax badan ayuu ka dareensan yahay wax badan ardaynimada ay soo maray wuuna fahansan yahay wuxuuna og yahay dadka berito ku hari doono in ay yihiin dadka ubaxa soo baxayo wax ka baranaya wadanka injineerka aad baan ugu mahad celinaa sida sharafta leh oo maxay todo oo u codsaday in uu dadka ubaxa dhalinyarada wax bartay waliba oo u arko oo ay fikrada iyo aaraada ay kala qaataan horta marka koowaad waxaan leenahay mudane wasiir ku soo dhawaaw wadanka Uganda anigoo ku hadlayo magaca ardayda wadankan joogto Uganda oo la magac baxay SSU si farxad leh ayaan kugu soo dhaweyneynaa waana ka warqabnaa howlaha ay noo hayso adoo noo matalayo dawladda la magac baxday dawladda shacabka aad baan kugu mahad celineynaa
waxaan rabaa ma inaan hadalka ku dheeraado ma rabo wasiirka inoo joogo asiga ayaanu xog badan ka heli doonaa laakiin marka hore aan siiyo xogaa yar oo warbixin oo ku saabsan dadka halkan joogo iyo qaabkay u yimaadeen iyo waxbarashada waxyaabaha ku saabsan iyo qaabka ardayda waddanka Uganda joogto ay ugu mideysan yihiin ama ay dhaxal ugu xirteen in ay isku walaashadaan oo ay waxbarashada isku wada garabsadaan si ay u garantii oo kaliya ay halka caawa fadhido iyo qayb ka mid ah ardayda way noo suurtageli weysay ardayda oo dhan oo ka badan in lagu qiyaaso 1500 oo arday ka badan lagu qiyaaso ayaa waddankan ku nool laakiin dhammaantood inaan ku wada horkeenno way noo suurtageli weyday laakiin waxay noo suurta gashay madaxdoodii oo annaga aan hogaaminayno inaan ku soo hor istaajino aad kala war qaadataan oo aad xogta kala qaadataan oo adigana aad naga siiso warbixinada ku saabsan dawladdeena iyo Soomaaliya iyo qaabka dhalinyarada ugu banaan iyo jaanisada kaga faa'iideysan karto waxa fadhiya halkan gudoomiyaasha jaamacadaha ugu waaweyn waddankan ee kala duwan oo Soomaalidu ay u matalayaan waxa fadhiya gudoomiyaal kala duwan halkan qaybtan hore waxa fadhiya gudoomiyaasha jaamacadaha iyo ku xigeenadooda ayaa wada fadhiyo qaybtaas gadaalana waa ardaydii ayaga naftooda oo qaarkood gudoomiyaal hore u soo ahaa qaarna ay rajeynayaan in howlo badan qaarkood ay qalin jibiyeen in waddanka ku laabtan ay rabaan haddaan xog yar ka siiyo qaybta waxbarashada waddanka Uganda aad baan ugu soo dhaweeyay waana uga mahad celinaynaa sidaad ka warqabtana sidaas la mid ah ay waddankeena horumar uga sameynayaan ciidamo ammaanka ilaalinayo oo horumarkeena ka shaqeynaya ayay geeyeen waddankan Uganda annaga uga mahad celinayna madaxweynaha Yoweri Museveni sidaas la mid ahna inta ma ku ekeysanine qofka ardayda Soomaalida ee waddanka joogto waa waddanka Afrika lagu tilmaamo waddanka kaliya oo ardaydu si nabadgelyo ah oo horumar leh oo farxad leh ku nool yihiin iyadoo sabab ay u tahay intooda badan safaaraddeena Soomaaliya oo noo madalayo xogayaha mudane Cali Qadar intaas annagii SSU Somali Student Union in Uganda ardayda waddanka Uganda joogto iyo wada shaqeyn safaaradda aan sameynay waxay noo suurta gashay si gacmo furan in ardayda lagu soo dhaweeyo waddankan annagana SSU haddaan matalayno aan dhaxda u xiranay inaan arday kasta oo imaanayo waddankan si farxad leh asigoon ka niyad jabin sida ka warqabna waxaa jirtay arday badan oo aan waxbarasho waddankan qaarkood u imaanin laakiin doonaya inay wadada iyo tahriib iyo badda inay maraan qaarkood inoo suurta gashay inaan ku wacyi gelino inay ka waantoomaan kana wanaagsan tahay inay wax bartaan iswalaashi iyo fikir aroorin tiro badan ayaan intaas ku suurta gashay waxyaabaha SSU ama ardayda Soomaalida ee waddanka Uganda ku nool u suurta gal waxa kamid ah sida ka warqabto qofku markuu waddanka yimaado ama meel cusub uu tago waxa u baahan yahay dad garab qabto garba ayaa u noqon haduu la yiraahdo meel fiican ayaan gaarsiinay ilaa qofka oo kala qabsado heerka jaamacadda oo waddanka ka fahmana waa la garab kale waan lagu soo dhaweeyay marka guud ahaan ardayda waddankan Uganda waxa ay noqotay dadka ka dhex muuqda Afrika gudaheeda wadamada Afrika Uganda lagu tilmaamo dadka dhex muuqda intaana laguma gaarin meel iska jiif laakiin waxa lagu gaaray shaqo wanaag oo safaaraddeena Soomaaliya hogaaminayso ayaanu ku gaarnay sidaas la mid ah caawa waxa farxad inoo ah dhammaanteen sida wajiyadooda ka dhaca kartaba in wasiirka Yariso mar hadaa maqashaan waa asna dhalinyaro qaybta dhalinyarada ayuu ku jiraa marka in oo qaybta dhalinyarada uu dareemi kareedaan qofku mar haduu codsado inuu dhalinyarta la kulmo wasiirka warfaafinta wax badan baa xogtiisa hayna aad buu u jecel yahay dadka wax barto ubaxa ah wuxuu og yahay ubaxa waddankan Britain inuu u dambeeyo inay yihiin insha Allah adinkana waxaan rabnaa inaad dhaxda u xirataan dadka bari matili lahaa ama booskooda bedeli lahaa inaan noqotaan haduu ilaahay hadalka ku dheeraan maayo wixii kale faahfaahin oo dheeraadana wasiirku waa inoo jooga si gooni ayaan ugu tagi doonaa anigoo matalayo ardayda waxyaabo badan oo gooni waa ka wada sheekaysan doonaa laakiin caawa aynu inta badan microphone-ka u dhiibno siino wasiirkeena warfaafinta si uu xog naga siiyo waddankii annagana insha Allah aynu kaga faa'iideysano dhalinyaro aanu nahay
mudan wasiir sidoo kale waxaan ku sheegay dad badan oo qalin jabiya ay halkan fadhiyo waxay u yimaadeen inay faahfaahin iyo khibrad badan ay ka helaan si ay waddanka markay ugu laabtaan meesha wax ka bilaabi lahaayeen iyo qaabkay maxay tood wax ula qabsan lahaayeen sidaad faahfaahin kaga siiso mar labaad mar saddexaad ilaa mar tobanaad waxaan leenahay mudane wasiir kusoo dhawaaw waddanka Uganda kusoo dhawaaw ardayda Soomaalida ee ku nool waddanka Uganda si farxad waliba iyo ay ku dheehan tahay reereen waxaan leenahay insha Allah wasiirkeena warfaafinta aad baan ugu faraxsanahay inuu noo yimaado marka waxaan si ku wareejinaa marka qaybta protocolka iyo xiriiriyaha sidoo noogu wado bismillaahi raxmaani raxiim kaamirada gooya ururo badan oo ka jiro magaalada oo cadeynaya activenimada ay muujinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed marka dalka waxaan kusoo dhaweynaynaa hadda gudoomiyaha ururka haweenka ee maamooyinka ee ku nool Kampala Uganda especially Kampala Malasiham Roga عادة أمور ترك عادة سيام سلو سيام حاجة سوستكها ما تتاجن سوستك تعال هنا نو يا حكاية كلينو معها قدر قدوميها أرضي يوغندا الصوماليات توريرة waxaan kaloo salaamayaa gacal dhammaan waxaan salaamayaa gudoomiyaasha ardayda ee kala duwan ee jaamacadaha Uganda gudoomiyihiina idin madax ah Tuuryare laakiin idinkana idin salaamayaa salaan kadib haweenka ka soo qayb galay horta anu maama hadda oo idinka dhan waa idin ah marka hadda mar hooyo ah waa idin ah soo alxamdulillah hooyaan ahay hal cunug joogo siyaasadii ka dambeysay in la aasaaso ururka haweenkana kuma imaanin haween meeshaan ma jiray haween ma aasaasna yacni waxay ku imaatay markaan arkay anoo jaamacad dhiganayay arday caruur fara badan oo Soomaaliyeed oo waxba baranaynin aadaan uga xumaaday waan baxay waxaan tagay meel hotel waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaan dadkayga la hadlo public figure aan dhaho oo aan yacni aan kala hadlo inay hooyooyinkan caruurtooda waxbarasho geeyaan kadib waxaa dhacday meesha hotelka waxay igu dhaheen meeqa qof aa rabtaa inaa isku keento 50 qof waxay igu dhaheen no warqad keenso waan baxay booliiska tagay waxaan dhahay warqadaan rabaa maxaa tahay public figure aan hayaan dhahay dadkaygaan rabaa inaan waxyaabo kala hadlo dan waxaa dhacday inay igu dhaheen waxaa ka hadlaysa soo sharciyo saanayo shakhsi kaligiis wax ma siino waa baxay arrintii iyo fikirkayga halkaas guracan ku noqday 5 bilood kadib waxay igu soo dhacday magaca ururkan oo ah Somali Women Union Uganda saasaan ku aasaasay wixii aan dadka kala hadlay ilaa hadda aan ku baraarujiyeen waxay ahayd waxbarashada oo mahadsantii intaas kadib hadda barnaamijkan caaw u gudo galo horta alxamdulillah fursad aad iyo qaali igu ah oo waxyaabo badan oo caloosheeda ku jira taabanaysa yacni marka caloosheeda aan dhahayana ma ahan aniga shakhsiyadeyda wax oo waddankayga yacni durayso aad iigu tahay fursad qaali ah waxaana aad uga mahadcelinayaa injineerka oo noo suuro geliyay inay yacni shacabka waxa duraya inuu ka dhageysto injineer horta waxaa jira waddankeeni horta inuu yahay ilmo waddankeeni waa caruur wuxuu u baahan yahay korin badan qaladaad badan aa naga dhacaya sax laakiin ayadoo qaladaad ka dhacay waxaa loo baahan yahay waalid markaana inaan caruurtii saxno waxaa jira saxaafadda in loo baahan yahay jihayn kalimadda jihayn saxaafadda waxay ka daran tahay hubka caadiga ee nuclearka la isku garaaco waayihii hore taariikhda haddii waddan la gumeysanayo waxaa loo isticmaali jiray divide to one baa la support garanaya waddanka baa qaybine qayb baa la jiraysaa fahme
hadda laakiin raaqan sax raaq quraan oo la kala qaybiyay qayb baa la jiri jiray whatever markii raaqan sax la soo laga arko inay guuleysan rabaan kuwa kale la aadaya ma fahmi hadda laakiin waa taas waa kasoo gudubna xoogaa laakiin meesha cudurka naga haysto waxa waay maanta oo hubka ugu daran waa saxaafadda waxay noqotay dhar cadka u shaqeeya adduunka ayaga isma oga shahaadooyin ay wataan ama 3 bilood soo qaado ama PhD ka soo qaado saxaafadda waxay noqotay dhar cad oo u shaqeeya dunida maanta meeshaas oo baa la iskula socdaa wax walba oo aan sameeyo jawaabta aan helayo feedback al dhaha waxay noqonaysaa inaan idaacadda ka dhageysto yes I did fahmaysaa marka waxa u baahanaa wax la dhahayo jihayn inaan shacabka codkooda la jihayn karo la control karo shacabka yani maanta horta social media imaaday oo xorriyadii way badan tahay laakiin still waxa la rabaa inay jirto la xisaabtamid iyo shacabka markuu waaga u soo bariyaba waagi aan Soomaali joogo waxaan dhageysan jirnay Sheekh Abuukar Xasan Maalin Sheekh Cabdulla Arif ninkii yaqaan alxamdulillah wali wanooli wacdigii way wadaan kama hadlay laakiin waxa u baahanaa in waayii hore waxa jiri jirtay heesii ii sheeg oo guubaabada sanadka ahaa heesaha hadda waxaan u baahanaa wadankii waa la kacay waxaasaa qabanay kan in yacni dadkii la jiheeyo dadkii iyaga marka waxay noqonayaan hala raacdo hashaa la dabagalaya marka intaas aad ay wixii kale oo durid ah xidi qofkii oo dhibaato qabanay markuu arko 100 qof oo socota asaga kaligiis uu noqonaa dhinacu naga soo raacay waa farmaajeysanahay waan qeyreysannahay dawladdan qaranaysa thank you hadda anagoo hore usii socona programkeena waxaan kusoo dhaweyneynaa qof u hadlaya gudoomiyaasha jaamacadaha ahna gudoomiyaha jaamacadda KIU Kampala International University mudane Axmed Maxamed Faarax kusoo dhawaanay ardada ka soo qayb gashay oo kala ah gabdhaha anaga aadka u quruxda badan iyo wiilashanada sida qaaska haddana waxaan usii salaamayaa gudoomiyaasha jaamacadaha oo mar walba aan u wada taaganahay sidii aan u horumarin lahayn SSU iyo ardadanada aan u nahay gudoomiyaasha midda labaad aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan moodaa waayahanba dawladda sida aan ugu faraxsanayn inay maaragtay inoo fulinayso waxaan nooga soo horeeyay wasiirka xildhibaano si aad u qurux badan nooga soo qayb galay xaflad xil wareejin oo ka dhacaysay jaamacaddanada waxay noo arkeen inaan marka hore waxay rabeen inay si fudud nooga tagaan markay arkeen jaceylka aan jecelnahay iyo sida aan ugu dhagayno oo aan sawirada ula galayno way nagu daaheen ilaa iyo 8 saac oo habeenimo ilaa 9 saac ay nagu gaareen wasiirka wuxuu naga dheehan karaa farxadda wajeenada ka muuqata maadaama aan nahay arda Soomaaliyeed oo ah wadankii ardada u soo koreysay aad buuna u mahadsan yahay mana raba inaan hadalka ku dheeraado Soomaalida waxay dhahdaa hadal badan haan ma buuxsho waxaan rabnaa asagana inaan ka helno warbixinta oo noogu yimid annagana waxaan rabnaa aan nahayna dad isku duuban haddii uu u yimid arda isku duuban gudoomiyaashoodii is wata gudoomiyahoodii guud ee SSU ardada inteedii kale waxaan moodaa sidii uu naga rajeynayay inaan noqon doono waxaan kaloo rabaa inaan ku daro waxaa laga yaabaa wasiirka inuu tago wadamo kale oo kala duwan oon ahayn Soomaaliya waxaan rabnaa inuu wajiyadanada ka dheehdo oo mar walba uu hadlayo ama arda uu soo qaato uu dhaho ardada Kampala aan ugu tagay oo arda aan u dhiga ma arag aad iyo aad buu u mahadsan yahay wasiirka waana soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوقا ما هتعديني أنا جوا حسوسين إنه وزيرك هل كان واحد جرت سنة ضلبة كدعو جامعة هاي اللي هذا كل شو قلا أو رئيس والقمة وجيل البيت عندي جالس كذا مع الوزير كنا ميسين جامعة ضلبة association كذا مرة بكتب كشوف كسر معلي مرة هذا كتب وليستان بتعرف كذا. أنا قاعد كاس كسي كورينا واحد جرا حيث الأرضية جامعة حيرك وين سيار موجنا activity جاي قبطان الأرضية الصومالية يصير إيهادا كليين يورو راميني كده موضوع ميرا لالي مشي تجران حيرك وين يمسن جامعة الخطوة جيل president كده يدو جامعة إجران هاك نجا قومية بدن نجا تغيير بدن نجا financial بدن هذا الصومالية ما كهران حيرك سنة وتطمن ما توي حاجة نلا فديا لبا جيل president وكل استقيني هو جامعة لبا جامعة ده جامعة هو بين كامبالا يمكن أن نقول دوينا بدونيه هو بدن الساعي
wasiir iyo la talihiisa iyo xogayaha iyo gudoomiyaha isku howlay arrintan in caawa iyadoo ramadaan tahay oo ognahay dadka qaar markay afuraan aysan soo kici jirin caawa laakiin ay soo kaceen liajli wasiirka dartiis waa mahadsantihiin keliya waxaan rabaa inaan laba erey iraahdo oo aan ku muujinayo shucuurteeda laba erey markaa le hadday ila tagta hadhow laba erey maxaa u dhiibaysayaan laydhihin mid waa soo dhoweyn horta waxaan rabnaa in wasiirka iyo tiimkiisa la socda kusoo dhaweyno Kampala oo ah xarun ka mid ah xarumaha ay Soomaalidu degan yihiin kaliya aysan u degnayn arday iyo kaliya wax bartay laakiin ay business community kala jiraan oo dad qaxootiya xataa jiraan oo abtuna kafaali ay degan yihiin laakiin annaga hadda halkan waxa fadhiya waxay tahay waa ardaydii wax baranaysay ee dalkan u timid kaliya ujeedada ah inay wax bartaan waa la soconaa dalka inta badan waan ka warhaynaa inkastoo weli aan ka maqanahay laakiin waxaan helnaa maanta yaa media markii la dhaho mediaha noogu weynaa helna waa facebookana waxaa helnaa xog kala duwan oo hadba meelaha qaarna na dhumisa meelaha qaarna at least wax xog aan ka helno soo marka caawa waxaan filaynaa inaan ka helno xog macquul ah oo dalkii hadday tahay maxaa la dhihi jiray howlaha ka socdo iyo khayrka ka socdo iyo waa la farmaajeysan yahay la yidhaha walaa la sheegay howlaha ka socda dhan inaan caawa helno mid waa midda kale waxay tahay annaga ka arday ahaan kama maqlin dalkeena oo inta badan waa ku fakarnaa leanna waxa waaye mar haddaan saan usii socon oo aan dhankii baddana naga xirmantay oo hadda inta badan dadkii ugu badnaa ay xoogaa aad moodo inay ka yaraadeen sidii hore ahayd oo ardaydii markay inta qaarkood soo gaaraan ani diyaaradda markaan soo korayay 2 sano ka hor oo aan xamaran soo maray xamaran toos uga soo baxay waxay la socday dad badan waa raadiyay Kampala ka raadiyay dadka qaar waa waay waxaa la ii sheegay dadka qaar marka inay hore u sii gudbaan laakiin dadka qaar inta badan gadaal dambaan ka arkay oo leana qaxootiyada ku jireen leana markaan weydiiyeen awal qorshe u yimaado waxaan inay taariiban laakiin way iska daayeen oo qaarkood arday noqdeen oo fakarkoodii u bedelmay haddii ay tahay dhanka horumarka dalka wax fiican iyo farxad iyo khayr badan ka soo yeeraya annagana meelan ku noqonaan rabnaa haddaan waxbarashadii dhammeeno meeshii aan ku noqon lahayn iyo bal wixii noo diyaara caawa waxaan rabnaa wasiirka bal inaan ka maqalno markaan tagno ani maanta waxaan ku fakarayay oo u sheegaya yarka saaxiibkay hadda ag fadhiya cabdiqani yarka agteeda fadhiya markii aan waxbarashada dhammeeyo maadaama aan haysan tusaale ahaan meel aan ka galgalo howlaha kale oo shaqo iyo garab iyo adduunyo kaleeto iyo talo intee aadaa niyo horta ma soo caan bixisaa Facebook iyo meelaha iska soo caan bixisaa isdhahay in si hadhow at least dad ku aqoonsadaan leana si kaleeto laguguma aqoonsana wax kasta garabay noqdo waa in at least la tixgeliya qofkan muxuu wataa bachelor wataa degree wataa masters wataa wuxuu wato waa in loo tixgeliya aqoontiisa la tixgeliya wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ani tusaale hadda waxaan bartay BBA business administration aan bartay oo human resource aan kusii takhasusay tusaale ahaan wasaaradda iyo shaqada iyo shaqaalaha haddii aysan jirin criteria ay ku xulanayso dadka loo qaadanayo shaqooyinka waxaa imaanaysa nin kasta inuu at least hadduu dalkii nooga sii waaba iga sii horeeyay opportunity kastoo soo baxda inuu baakad u samaysto ama uu tago baakad waxaan kala jeedaa haddii aysan jirin waxyaabo looga hortago inuu shahaado uun iska soo qaato ama garab lagu geeyo meeshaas nin garab haysto waxaa la yidhi nin maxaa la dhihi jiray ii sheega gardarro garab og iyo gaajo guri og labadaba looma taakeela lahaa marka qof garab haysta shahaado hadduu kula wato iyo hadduusan wada laba gooraba meeluu wax ku ogyahay abtigiis adeerkiis eedadiis qof baa wax u ah meesha dawladda ugu jira dawlad keliya ma ahe annaga meeshii at least shaqo abuur laga heli karo dalkeenna in dhallinyaradan shaqo loo abuuro ay sacaadatul wasiir idinka sugayaan midda ugu dambaysan kusoo gabagabeynaya waxay tahay oo aan rabay inaan ku muujino ardayda inay dalka la socoto buugana aan sito waan soo gabagabeynaya waxaan rabaa inaan dalka ku tuso inaan la socno sacaadatul wasiir dawladdiina hadda jirta ee dawladdan shacabka ah ee mudane madaxweyne farmaajo markay imaanaysay annagoo iskuulo leh weliba aniga khaasatan markaa ka hadlo ayaa maalintaas off soo qaatay holiday aanan cidna isiin iskii aan usoo qaatay maxaa marka sameynaya taaliga aan ku taaligaraynaya ilaa hadda waa wataa waa kan in allaala inta musharaxiina tartamaysay macnaha
dadyooga kale xuquuq ay leeyihiin markii ay dalal kale joogaan waa codeeyaan annaga ma codeynayno xildhibaan keliyaha meesha afkeena haysto oo asagaa codeynaya soo markuu asaga codeynaya marka waa inaan facebook iyo tviyada hor fadhinaan kala soconnaa soo marka insha allahu tacaala waxaan leenahay sacaadatul wasiir soo dhowow adiga tiimkaaga aada u mahadsantihiin wabilaahi towfiiq inaan dheereeyo warka mar rabe oo soo gaabinaya asalaamu calaykum waraxmatullah aad ayaan umahadsan tahay mudane gudoomiye haddana waxaan kusoo dhaweyneynaa gudoomiyihii labaad ee gildi president ee ahaa jaamacadda international university of east africa mudane engineer cabdirashiid ismaaciil abukar wasiir la taliye mudane cali qadar safaaradda gudoomiye ardayda soomaaliyeed gudoomiyaasha kale jaamacadaha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu actually I wasn't expecting speech in Laysio but I have to be precise now marka koowaad mudane wasiir waa kaaga mahad celinaynaa imaashaha noo imaadee waxaan kaliya aan rabaa inaan ka dhawaajiyo meesha aan hadda joogno ardaydiina mar walba waxaan sameynaa ama ku dadaalnaa inaan matalno shacabweynaha dhammaan iyo shacabweynaha soomaaliyeed meel walba joogaan because mar walbana la arko dadka waxaa kusoo dhacaya qarax waxaa kusoo dhacayo pirates waxaa kusoo dhacayo any sorts dadka in la dhaco so aniga hadda kula hadlaya jaamacadda markaa u istaageenay arday ahaan minority ana soomaalida laakiin it was struggle laakiin waxaan sameynaa ardayda soomaaliyeed inay the proud jaamacadda inay cultural galaha haday lagu sheego kale aan ku guulaysano gildiga ku guulaysano hadda currentiga xukuumadda ardayda jirto jaamacaddeena inay ka yihiin speaker intaas kaliya kuma ekan jaamacaddeeni waa jaamacadahay dhammaan waxaan kaloo caawa hilmaamaynaa inuu joogo former prime minister of KU mudane cabdiraxmaan CD please stand for recognition taasi waa matalaada aan matalno soomaaliya meel walba aan joogno maadaama hadda u imaadeen in digital loo bedelo waxaan jeclaan lahayn in wasaaradaha hadda sidoo kale markaan rabno inaan dowladda u shaqeyno kale meelaan kala xiriirino webpageyadooda inaan eegana nala sheergaraysaan haddii jiraan inaad samaysaan haddiina jirin inaad samaysaan haddii jiraan inaad nala sheergaraysaan si aan meeshaas u raacno tan kale intay u joognay 4 sano ee dalkan maalmahan ardaydii soomaaliyeed waa lagu adkeeya fiisooyinka ee imaado dalka ta dowlad ahaan waxayna ka codsanaynaa xukuumad ahaan ina arday badan oo jecleed inay waddanka imaado ma imaan karaan because of visa they might have reasons laakiin dad badan oo rabo inay waxbartaana jiraan opportunitygaasna maanta ina u saacido karin because of visada lagu adkeeyay ka xukuumad ahaan waxayna ka codsanaynaa in arrintaas nagula dadaashaan sida og tahay dhammaan populationka soomaaliyeed maanta inkastoo exact statistic la haynin 70% waxaa lagu xisaabeyn yihiin arday waxaan ka codsanaynaa dowladda inay naga faa'iidaystaan energyga maanta aan hayno aqoonta aan hayno iyo fikradda aan hayno haddii kale haddii aanan dowladda ay ka faa'iidaysan dad kale u joogo wax baa lagu qarbido doonaa ardayda maskaxdooda enerjigooda intaasaan kusoo gabagabeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane gudoomiye haddana before we give the minister waxaa haddeertaan hadal siinaynaa qof ku hadlaya magaca society-ga maxamed gacal oo ku hadlaya oo ah maareeyaha Afrotel International oo ku hadlaya magaca society-ga 2 minute speech alxamdulilah waxaan salaamayaa wasiirka oo haddee anugu aan isla soconay oo tiimkiisa aan ahay Uganda isagana sidoo kaleeto waa salaamayaa intaa markaan kasoo gudbo waxaan runtii aad si wanaagsan u salaamayaa dhalinyaradan quruxda badan maxaa la yidhahdaa sumcaddii iyo sharaftii iyo calankii soomaalida huwan waxbarashada u jooga dalka Uganda ayaan salaamayaa uma istaagin runtii inaan hadal dheer badan aan dhaho kaliya waxaa u istaagay haddaynan bidaartayda idin siraynin waxaan u maleeyaa inaan dhalinyaro ah saas darteed haddana dhalinyaro qurbo wax kusoo bartay ahay anugu Pakistan baa wax kusoo bartay haddaba marka waxaan idinla wadaagaa tabidda dalka tabaysiin waa idinla soo wadaagay maxaa la yidhahdaa dalkaaga ahayn markaad wax ku baranaysa caqabadaha fiisaha ka imaanayo caqabadaha hosteelada ka imaanaya caqabadaha language barrierka ka imaanayo waxaasoo dhan waa idinla soo aragnay waa kasoo gudubnay
si oo maxaa la yidhahdaa wanaagsan baan uga soo dhalaalnay waxbarashadeennii annaga oo og inaanan saboorti ka helaynin dowlad maxaa yeele anuu aabbahay wuxuu ku soo bartay si freeya laakiin aniga hooyo aabbaa waxaa waay bish markay dhammaato 39 maraysa ku qayli jiray war waxaa liisoo tuuro sidaasaan wax ku soo bartay laakiin sidaas ay tahay haddana waxaa mar kasta kugu jira wadaniyaddii waxaa mar kasta kugu jira inaad dalkii wax u qabatid taas ayaa keentay inaan dalkii kusoo laabto anuu 2012 anigoo master degree alxamdulilah kadib waxaan shaqo bilaabay consultancy ayaan si ahaan u shaqo bilaabay waxaa ii xigtay inaan ka shaqo bilaabo maamulka gobolka banaadir dowladda hoose ee muqdisho oo aan ka soo noqday maxaa la yidhahdaa agaasimaha shaqadii shaqaalaha kadib waxaa ii soo xigtay inaan noqdo agaasimaha mashaariicda iyo sidoo kale la taliyaha duqa magaalada ee mashruuca SUIPP ee World Bankiga waxaa ii soo xigtay inaan noqdo agaasimaha xafiiska duqa magaalada iyo kadib oo aan ka soo tagay oo hadeertaan aan mas'uulka ahay maareeya ka ahay shirkadda Afrotel International oo ah shirkadda hadeertaan talada ka dhiibaysa barnaamijkan digitalizationka analoga looga guurayo digitalka loogu guurayo marka waxaa rabaa inaan idiin muujiyo haddaad isku kalsoon tahay waxbarashadaadii ay sax ahayd runtii wax aad garab u baahan tahay ma jirto maxaa yeele anuu cidna kama naaqoon Soomaaliya markaan ku soo laabanayay qof igu jira dowladana ma jirin oo adeerkaya waxaan ku imid waxay ahayd imtixaan caadi ah aan galay iyo markaas transformationkii iyo change managementkii markaas socday processkii oo aan la qabsaday maxaa yeele markaas waxaa la dhiirigelinayay in dhalinyaro systemka lagu talaalo ilaa ay hadeertaan ay socotaa marka kulligiin qalbiga ku haya dalkiinu waa idiin baahan yahay dalkiinu markasta waa idiin baahan yahay diyaar ayuuna idiin yahay insha Allah tacaala haddii la yiraahdo fursaduhu waa badan yihiin uma baahnid keliya inaad tirahdid dowladda keliya uga shaqeynaya dadka no meelo badan uga shaqeyn kartaa anuu dowladana waa uga soo shaqeeyay hadeertaan si private aan dowladda ugu shaqeynaya aan dalka ugu shaqeynaya aniga oo weli dowladdii la sii shaqeynaya marka waxaa waaye fursaduhu multiple of opportunities ayaa jiraan oo idiin furan kulligiin insha Allah tacaala ogaada fursadda adinkaa iska leh maalin dhaweed aan la kulannay xogayaha joogtada wasaaradda warfaafinta Uganda ayaa wuxuu yiri waxaan uga mahadceliyay Amazon taageerada ay u muujisay dalkeena markaas wuxuu yiri dad badan sidaas ma aaminsana inaan wanaag u joogno Soomaaliya anigu waxaan dhahay kulliba generationka aniga aan u hadlayo inaad wanaag u joogtiin oo wax badan noo soo qabateen ayaa aaminsanahay taas micnaheedu waxa waaye marka walwalka iska yaree hadda annaga na haysatid dalkii waa haysataa maxaa yeelay intiinan hadda dalka u laabatiin dalka adinkaa iskale insha Allah tacaala dalka dhalinyarada waqtigooda la jooga ayagaan iskale waa mahadsantihiin idin xasuusinaya inay nala joogaan laba idaacadood oo warbaahinta dalka Soomaaliya SBC Universal iyo Somali National saddex ayaa nala joogta haddana waxaan riimeynaa badane cabdifaax ku hadli doono magaca warbaahinta maadaama uu wasiirka warbaahinta nala joogo sidana ku doonaya inuu warahmatullahi wabarakatuh wasiirka macallinkayga Jaabir wakiilka safaaradda xogeyaha ardaydan uu nala yahay oo madaxda ardaydu ka mid yahay walaalkeen iyo guddoomiyaheena guddoomiye Siham intiina waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka annaga warbaahinta waxaan u maleynayaa Soomaaliya Jaabir iyo wasiirka madaxay noo yihiin ayaga hormuudno ah meel fiican inaan Soomaaliya soo gaarsiinay oo xagga free expression laakiin social media soo baxay marka dambe ayaa wuxuu qaribay wixii la dhihi jiray media saxda oo jihaysna oo waalay adduunka dhan maaragtay waxaan loo bixiyay citizen journalist Soomaaliya citizen journalist loo bixiyay oo qof walba wuxuu rabo iska soo geliyaa qof walba oo citizen marka Siham iyo in badan oo waxaan u maleynayaa ka mid ah ardayda yaa la isku qaldin saxaafadda saxda iyo saxaafadda social media saxaafadda saxda waa tan maanta soo gaarsiisay Soomaaliya in dialogue lagu wada hadlo TV-ga Universal aan ka midnahay cawil wuxuu bilaabay dood wadaag long time dood wadaagna it means dialogue waay in dadku wada hadlaan kadibna qoriga la dhigo qalinka la qaato uu soo socoto maanta waad arkaysaan madaxweynaha la soo fariisiyay wasiirkii habeen dhaweyd fadhiyay oo ka jawaabay su'aalo badan wax badan ayaa horumar la sameeyay marka saxaafadda annaga meel fiican ayaan wax soo gaarsiinay
idinka intaala marka inaad ka sii wadaan insha allah waa mahadsan yihiin wasiirka fursadda ayna siiyeen iyo jaabir ismiyada barane macalinkeenna waaye annaga saxaafadda maaragtay in badan soomaali ayadoo laku faadhacayo maaragtay kor usoo qaaday oo wax soo maaragtay isagoo dibadda ka yimid oo jaaniskiisa iyo waqtigiisa ugu bixiyey oo na soo gaarsiiyey meel fiican oo aqoon inaan maaragtay fahanno saxaafadda iyo waxay tahay si fiican noo soo gaarsiiyey aad ayay u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad ayaan umahadsan tahay iminkana waxaan kusii soconaynaa main eventigii oo ah inaan warbixin ka helno wasiirkeena waxaan kusoo dhaweynaynaa mudane cali qadar oo kadib dib noogu sii wareeji doono wasiirka soo warbixintiisa iyo maxaan dhahaa hadde qalbiga iyo nolosha iyo lafdhabarta bulshada soomaaliyeed caawa horta aniga ninka ugu badan oo aada u faraxsanaya idinkama ogdiin 2 sano ka hor waxaan dalbaday in layga bedelo safaaradda dadkii diiday oo cagta saaray waxaa ka mid a wasiirka waxaan ku ordaayana waxay ahayd arday kala qaybsan haddaa idiin sheegaya dalka dartiinaan rabay inaan uga tago maalintaas laakiin caawa waxaan leeyahay waa idinku faana haddana sidaa ogeed macal wasiir anigii tabanayay laakiin caawa waa faana waxaan leeyahay dadaalkaagii iyo dhiirigelintaadii waxay dhashay maanta ardaydii soomaaliyeed oo reer ugando hal ah waxay dhashay ardaydii oo maanta intay jidadka istaagaan dadkaan ka hadlaynay oo tahriibka ahay intay soo qabtaan iyaga samafal UNHCR t soomaaliya u fadhiday uganda iyagiia waxay yihiin kooda habeen 7 saac jirada inay u gurmadaan marka caawa waa idinku faanaa intaan iyo in ka badan waa idinka rajaynaa waana mahadsantihiin waxaa laga dhawaajiyay arrinta fiisada aniga kama hadli doono wasiirka wuxuu dalka u joogay ka mid tahay ciddou kala hadli doono iyo shaqada u socdaa saa idiin sheegi doona af jooga looma adeegaa la yidhi maalin wasiir soo dhawow joogo waxaan soo daahnay jaabir halkan waxaan u nimid horta shaqo maantana waxaan la kulannay wasiirka warfaafinta isgaarsiinta teknolojiyada iyo wacyigelinta bulshada berrina waxaan la kulansannahay actin wasiirka arrimaha gudaha oo sidoo qadar u sheegay sababtaan u ballansanayna ay ahayd bal dhibka ardayda haysa iyo soomaalidaba guud ahaan ee ku aadan dalku soo galka waddankan bal inay noo u fududeeyaan soomaalida si dalkan usoo galaan marka arrimahaas oo shaqooyinka waa la socotaanoo hadda wasaaraddii warfaafinta ayaan joogaa iyo wacyigelinta bulshada ama hanuuninta dadweynaha hadba sidii loo yaqaano runtii dalkan isbeddel weynaa ka dhacay soomaaliya sidaa la wada socotaan marka hadda annaga waxyaalaha aan mudnaanta gaarkaa siinayna waxaa ka mid ah sidii warbaahinta loo horumarin lahaa sidii muxuu ahaa horumarkaas ay uga mid noqon lahayd waa la socotaan xeerka saxaafadda oo horey loo ansixiyey inaan dib u eegis ku samayno barnaamij dhaqangal ah wacyigelin bulshadeed oo aan diyaarinno qorshaheeda ayagana sidaan u dhaqangelin lahayn arrimaha marka horumarka waxaa ka mid ahaayoo kale sidii markii ugu horreysay dalka uu u yeelan lahaa Somalia Broadcasting Corporation wax la yiraahdo ama warbaahinta bulshada oo weli waddankeena ma laha laakiin la socotaan Uganda iyo Kenya iyo wadamo badan ayaa leh taas iyada ah ayaa iyadana waxaa qayb ka ahayd sidii analog systemka looga guuri lahaa oo digital system loo guuri lahaa adduunka caalamkana horey waxaas u wada sameeyeen wadamada farkutiriska ayay Soomaaliya ka mid tahay weli duruufaha jira darteed iyadana halkan waxaa u nimid bal inaan cashar ka barano fiirino bal habka ay u shaqeeyeen iyo sidii aan wax uga faa'iideysan lahayn runtii waa dareemi kartaanoo dalka Soomaaliya si
aan tallaabo adag dhaadheer u qaadno waxaan u baahannahay in aanan reinventing the wheel aanan ku samaynino oo aan maaragtay ka faa'iidaysano dadka hore u maray marka arrimahaas iyada ah kadib waxaan doorbiday in ardayda muhiimadda aan leedihiin inay muhiim tahay inaan is aragno waana hadda ka hor maraan imidna waan is aragnay saa la socotaan 8 Febraayo dalka isbeddel dhab ah ayaa ka dhacay runtii arrimaha aan islahaa ardaydana la wadaaga waxay ka mid tahay horta isbeddelkaas iyo macnihiisa rajada timid see looga faa'iidaysan karaa xaggee Soomaaliya u socotaa maxaase annaga qof walba oo idinkeeda ka mid ah uu kaalin intee leeg ayuu ka qaadan karaa waa dareemi karaa in dhammaantiin Soomaalida oo dhan waa siyaasiyaal la dhahaa waa la socotaan dalka iyo wuxuu ka socday marxaladihiisa meesha uu marayo laakiin waxaan rabaa inaan dul istaago 8 Febraayo dhacdadii dhacday runtii waa dhacdo taariikhi ah horeyna uga dhicin dalka sababo badan dartood kow doorasho muddo soo socotay oo sanadkii 2012kii odayaashii dhaqanka soo xulay xildhibaanada la yidhi hab ka fiican oo ka horumarsan hala gaaro tii waa la socotaan ilaa iyo 6 magaalo oo ka mid ah dalka inay doorasho ka dhaceen in si oo xoogaa ka sharciyad fiican tii hore ay dhacday hase yeeshee ay cabashooyin badan ka taagnaayeen doorashada iyo habka ay u socoto iyo madaxda markaas ku tartamaysay iyo sidii loo arkayay adduunkan wax walba waxaa muhiima horta waxa dadka iska leh siday u arkaan waxaa dhacday caqabad ka soo jirtay 8 Febraayo go-aankii soo baxay ee madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ku guulaystay inay badbaadisay dalkii inay badbaadisay bulshadii in shacabka ay soo dhaweeyeen runtii sababta shacabka u soo dhaweeyeen meel walbana looga taageeray waxay ahayd in ay muuqato rajo in madaxweynaha loo arkayay madaxweynaha daacad ah oo runtii shacabkiisa iyo dadkiisa u naxaya lagana aaminay inuu dalka horumar gaarsiin karo shacabkii iyo taageeradoodii iyo soo banaanbaxoodii maalintaas taariikhda iyada ah sidii looga dhabayn lahaa looga faa'iidaysan lahaa waa mid horta naga wada dhexayso siiba ardayda aniga aan rabo inaan aad ay arrintan hoosta uga xariiqaan adduunku isbeddel waa ka dhacaa soomaaliyana waddan marxalado kala duwan soo maray loo arkayay in marba marxalad kala keenaysay laakiin hadda loo arkay in marxaladan ay ka fursaddan jirto ay ka fursad fiican tahay fursadihii jira iyadii marka waxay u baahan tahay far kaligeed fool ma dhaqdo madaxweyne keligiis waxba kama qaban karo dhammaan caqabadaha dalka jira ee haysta waxay u baahan tahay in shacabka iyo dhammaan qaybaha bulshadoo dhan inay ku taageeraan mas-uulkaas sidii howlaha loo igmay loo gudan lahaa haddaba maxay yihiin wax la iska sugayo waxa la iska sugayo oo mandate-ka dowladda la siiyey waa in dalka la gaarsiiyo marxalad qof walba Soomaaliya oo codkiisa dhiiban kara hal cod iyo hal qofna la gaaro si taas loo gaaro marka waxaa ka horeeyo arrimo badan oo ay ka mid tahay kow sidii xisbiyadii loo dhisi lahaa sidii muxuu ahaa dastuurka ku-meelgaarnimada looga saari lahaa iyo sidii nidaamkaas dimuqraadiyiinta la rabo hal cod iyo hal qof inay goob walba ka dhacdo loo dhaqangelin lahaa arrimahaas oo dhan waxaa hortaagan marka caqabado fara badan oo runtii u baahan in muxuu ahaa qof kastoo Soomaali ah uu fahmo si xal loogu helana ay noqoto mid naga wada dhexayso oo aan rabno inaan hal meel u wada aadno caqabadaha ugu horreeya waxay tahay horta tan dowladdu ma haysato dhaqaalo ku filan hay-ad dukaan muxuu ahaa ma wadi kartid ama ma kuusii furnaan karo haddii aadan helin maalgashiga u baahnaa dukaankaas sidoo kale dowladdu waxay u baahan tahay miisaaniyad iyo budget waxay u baahan tahay dhaqaalahana waa inuu ka imaado dalkana cidda
dhaqaalaha laga keeni karo waa shacabkii inay bixiyaan canshuurihii loogu talagalay si dowladdaas ay u hesho miisaaniyaddii ku howlgeli lahayd hortaas waa caqabad dowladihii hore oo dhan soo haystay oo aad moodo haddaanan aragti laga yeelan in ay hadhow fududaanayso 6 bilood markii la joogaba in la dhaho oo dowladdaasaan ka sugayna mehe maxay qabatay caqabadda kale oo iyadana aadka muhiimka u ah in iyadana si wadajira looga shaqeeyo waa arrimaha amniga dalka waa la socotaanoo dad waxaa joogo shabaab la yiraahdo oo ayagana u arkaba in carqalad iyo burburin iyo inay muxuu ahaa ay dalkii kusii hayaan runtii iyadana marka waxay u baahan tahay naftirkeedii si amni loo sugo waxay u baahan tahay dhaqaale si maaragtay doorashooyin loo qabto dalka horumar loo gaarsiiyo waxay u baahan tahay dhaqaale si dhaqaale loo helo waxay u baahan tahay xasilin iyo amni marka waa wax isku xiran oo haba yaraatee aan la kala saari karin marka arrimahaas iyaga ah ayaa waxaa la rabaa sidii looga gudbi lahaa in la isla fahmo aragti laga yeesho waxaan qabnaa baarlamaan golaha shacabka ah iyo aqalka sare oo runtii markii ugu horreysay soomaaliya aqal sare yeelato iyagana iyo hay-adihii xukuumaddii iyo madaxweynihii dhammaan waa sidii loo wada shaqayn lahaa oo dalkana loo gaarsiin lahaa howlaha loo igmay taas waa midda la rabo inaan lagu halaynin keliya xukuumad iyo golo shacab iyo aqal sare iyo madaxweyne waxay u baahan tahay mid shacabka oo dhan ilaan waxaan ayagaa iska leh inay ka wada shaqeeyaan hal qof iyo hal cod waxaa dan ugu jirto qof walba oo soomaaliyeed meel walba jooga muddada yaroon kooban waa la socotaanoo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre runtii wax badanaa la qabtay arrimaha ugu muhiimsanna waxay ka mid ahayd tan gargaarka oo runtii aad la socotaan gargaarkana waa markii ugu horreysay guddiga abaaraha ay soomaali dhexdeeda ka soo ururiyeen lacag gaaraysa 6 milyan oo dollar oo aan horey u dhicin taasna waxay ku timid waxay ahayd dhiirigelinta madaxda qaranka iyo iyadoo markii ugu horreysay la sameeyey wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka oo iyadana runtii samaysay xarun oo coordination ah sidii hay-adaha muxuu ahaa caalamiga runtii qayladhaan ay dowladda samaysayna waxay dhacdayba in aada looga soo jawaabay imaaraadka ugu dhowe inay dhaqaale aruurin telefishinkooda sameeyey ilaa 65 milyan oo dollar inay hadda gacanta ku hayaan oo dowladdu ay kala tashanayso sidii muxuu ahaa dhaqaalahaas loo gaarsiin lahaa dadka tabaalaysan dowladduna ay leedahay dadka tabaalaysan iyo waa in la isku dhex wado inaysan abaartu soo noqonin oo qofkii si uu u helo muxuu ahaa nolol joogto ah waa isku xiran tahay qofkan raashin keliya la siinaya inay ka fiican tahay in ceel loo qodo in muxuu ahaa mashaariic horumarineed loo sameeyo shaqana abuuri karta qofkiina runtii gaajada hadda jirtana si temporary looga sii baaqsan karo arrimaha amniga waa la socotaan in madaxweynaha 6 abriil uu ku dhawaaqay ama iclaamiyey xaalad dagaal inuu dalku ku jiro ujeeddadana wax kale ma ahayn dee dalku inuu fowdo kusii jiro dad raba oo inuu dhaqankii hore socda oo qoryo inta iska haystaan muxuu ahaa iyo shabaabkii hadhow dowladdii ay dhib noqoto yaa horta lala dagaalaa iyadana in muxuu ahaa la iclaamiyo dagaalkaas wuxuu keenay in juhdi badan la geliyo waa aragteen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba oo booqanaya belidoogle iyo baydhabo iyo ujeeddadana waxay ahayd in ciidamadii la dhiirigeliyo si howlgallada maaragtay ay u dardargeliyaan sidoo kale waa markii ugu horreysay security architecture wax la yidhaahdo ay dowladda madaxdeeda iyo dowlad goboleedyada madaxdoodu isku raaceen ujeeddadana ahayd aragti in laga yeesho amniga dalka oo aan isbarbaryaac uusan dhicin iyadiina waa lagu guulaystay oo shirkii london waxaa la wada tegay iyadoo hal aragti hal midaysan la wada leeyahay tiina markay caalamku arkeenna waxaa dhacday inay usoo jeestaan arrimaha amniga waxaa kaloo ka mid ah arrinta xasilinta muqdisho oo beryahan aad la socotaan runtii arrintaas waxaa la rabaa inaydan sahashanin waa arrin u baahan ma dhaqankii horaa socdo oo fowdadii wixii la iska dhaafaa
mise isbeddelkii dhacay 8 Febraayo shacabkii iyo dowladda inay dowlad shacab tahay shacabkan wax walba oo lagu badbaadin karo la sameynayo horta taas fikradaha noocaas ayaa yaalla dooda waa la socotaan oo baraha bulshada dad ay leeyihiin qabiilo gaara loo dan leeyahay dad ay leeyihiin ma gobolada kale laga soo aruuriyo dad ay leeyihiin annaga yaana damaanad qaadaya arrimahaas oo dhan runtii waxaa la rabaa in danta guud horta laga fiiriyo yay ugu jirtaa dan in hub la aruuriyo yay dan ugu jirtaa in amniga la sugo yay dan ugu jirtaa in muxuu ahaa waddanka magaalada caasimaddii amni oo nabad ah dhammaan shacabkay ugu jirtaa qof walbaa dan ugu jiro waxyaalaha qaarkood oo mararka qaarkood muxuu ahaa lagu beer la xawsanayo oo beel iyo la leeyahay arrintaas waxaa la rabaa in maskaxdiina ardayaatiin ay ka furfurnaato dadka gudaha joogana aad ku qancisaan oo tiraahdaan arrimaha kan waa arrimo nidaam dowladeed haddaan la helin qof badbaadaya ma leh ninka rabo dabajeex iyo dhashiiko inuu magaaladii ku haysto al-shabaab weligeed inta qof soo weerarto si foolka foola oo baabuur ku wato lama dagaasho waa la ogyahay marka haddii qarax al-shabaab uu yahayna dhashiiki iyo kaama celinayo marka qofka noocaas oo kale ah in marmarsiyo noocaas oo kale la sameeyo iyadana waa arrin runtii aan loo dulqaadan karin dhabna aan ahayn arrimahaas oo dhan waa arrimaha keenaya dhaqanka iyo in la bedelo waad aragtaan oo isbeddel sideedaba dadku wuxuu ka doorbidaa sida uu yahay inuu ahaado laakiin haddana ardayaatiin waxaa barateen maskaxda inaad furtaan haddaan isbeddel imaanin meesha aad joogtid unbaa joogaysaa isbeddelka fursado badan baa ku dhex jira marka taasna in muxuu ahaa dowladdii lagala shaqeeyo aad baan usoo dhawaynaynaa ra-iisul wasaaruhu maalin walba golaha wasiirada wuxuu ku yidhaahdaa ma dhaqankii horeana bedelaya mise annagaa hadda mas-uuliyad hayno oo la imaanayna isbeddel cusub oo aan ku bedelaynaa si maamul wanaag loo keeno waa la socotaanoo arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa inay meel adag ay dowladdan ka istaagtay dadaallo badanna lagu bixiyey iyadoo saasta ayaa dad inta yimaadaan waxay leeyihin war musuqmaasuqana hadda wadaan dad gaaraa loo dan leeyahay marka arrimahaasoo dhan waa dhaqan hore u baahan in la bedelo ardaydiinana waxaan aad u jeclaan lahayn haddaydan waddankii inta timaadaan dhaqankaas la bedelayo kaalin mugle aadan ka qaadanayn ugu yaraan baraha bulshada inaad dhaqankaas dadkii wada aad ka joojisaan haddii la arko bulshadii ku yaacayso dhehayso dhaqankii hore iyo fowdadii waa dhammaaday waddankiina waa is aaminayaa perceptionna waa la socotaana waa wax walba waa ka muhiimsan yahay marka arrimahaasna aad baan u jeclaan lahaa inaad kaalin wanaagsan nagala qaadataan arrimaha dhaqaalaha iyo horumarka laga sameeyey muddada 2 bilood iyadana muxuu ra-iisul wasaarahuna waatuu uu sheegay iyadana waxaa socda dadaal aad u fara badan oo ku salaysan wixii dhaqanka hore u ahaan jiro o dhan in la bedelo hadda waxaa timid in mushaaraadka si joogtaa loo bixiyo waxaa timid in ciidanka daryeel gaara la siiyo arrimahaas o dhan waxay ku timid iyadoo la dhudhuujiyey meelihii musuqmaasuqa ka jiray haddaan lasii dhudhuujinina weligeed wax hagaagaya ma laha marka waxaasoo dhan waa wax isku xiran howlaha kale ee dowladda runtii u suuro gashay waxaa ka mid ah doorashadii 8 Febraayo caalamka sidii noola dhaqmayeyna xitaa bedelay markay arkeen madaxweyne iyo xukuumaddiisa iyo shacabkiisa wada socda runtii si kale ayaa horta naloo soo eegay caalamkana wataa aragteen in madaxweynuhu booqashooyin uu ku kala bixiyey ujeeddadana ahayd in caalamkii soo jeestay oo invitation usoo diraya madaxweynihii waxay fahmeen haddii dowladdan cusub ee socota waddan walba uusan la jaan qaadin la qabsaninna in soomaaliya u soconayso midda kale ugu muhiimsan waxay tahay soomaaliya waa meel istraatiijig ah horta ku taalo adduunka africa keliya ma aha bariga dhexe iyo dhammaan caalamkaba aad baa isha loogu hayaa soomaaliya ma aha soomaalida ma aha waa positionka aan ku naalno strategic maaragtay inay tahay oo dhan walbo kheyraad ah ay leedahay adduunkana ay doonayaan haddii soomaaliya ay hagaagayso waddan walba uu leeyahay bal adiga qofka ugu dhow saaxiib la noqday noqo marka runtii horta rajada aaday u fiican tahay rajadaasna waxay keliya ku imaan kartaa dhaboobi kartaa marka
soomaalidu ay noqoto wax isla socda waa dareemi karaa ardayaad tihiin halkan ha joogtaan caqabado badan baa idin haysta oo runtii muxuu ahaa waxbarashadiinii ku aadan oo qof walba ah haddana inaad isu timaadaan is abaabushaan guddoomiyaal samaysataan runtii waa waxyaalaha soomaalidu ay uga duwan tahay dalal kale caalamka ah waa waxyaalaha caalamkan uu aaminsan yahay haddii soomaali hadda israacdo in wax celin kara uusan jirin marka arrimahaasoo dhan waxay u baahan yihiin dulqaad midnimo wadajir iyo adkaysi qofkas ay ka rabaanna waa qof walba oo soomaaliyeed midda u dambaysa aan rabay inaan iraahdo waxay tahay waddanku wuxuu u socdaa doorasho doorasho hadduu u socdana hadha waxaa imaanaysa hal qof iyo hal cod hal qof iyo hal codna caalamka dimuqraadiyadda waa la socotaano dadka is abaabula isku xiran muxuu ahaa ayaa mar walba guulaysta xisbiyo badan baa samaysmi doona baarlamaanka wuxuu ku qasban yahay 2 sano gudahood qof kasta inuu xisbi ku biiro ama xubinnimadii baarlamaanka uu waayo taas marka waa mid dowladdan ay ka go'an tahay sidii loo samayn lahaa asxaab siyaasadeed waa dhici kartaa inta hore in la jiido oo 100 xisbi iyo qof walba Soomaalida inta hore shakhsi dildo qof ka fiican Soomaalida oo dhan waa dadka ugu fiican laakiin meesha xoogaa annaga weaknesses ka aan ka leenahay waxay tahay wada shaqaynta iyo muxuu ah sidii loo samaysan lahaa wax naga dhaxeeyo common ah ugu mintida lahayn looga bixi lahaa shakhsiyadda arrimahaas oo dhan waxay ku imaan karaan waxay tahay hadba sida dhalinyaradu ay cududooda u midayso u bilowdo ilaa iyo heer ay u gaarto muxuu asxaabta siyaasadeed iyo qasab ma asxaab siyaasadeed waxaa imaan karo ururo lagu midoobo muxuu profession ururka macallimiinta ururka ardayda ururka shaqaalaha oo runtii muhiim hadhow u noqonaya markay cod timaado iyo siyaasadda inay influence ku sameeyaan arrimahaas oo dhan marka waxaan isleeyahay waa waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo koobo runtii mar kale anoo idinkaga mahad celinaya waqtigiina qaaliga ah duruufaha ku shaqaysaanna og waxaan idinkula dardaarmi lahaa kow qofku markuu isaga wax isku taro ayuu qof kale wax u tari karaa kow horta idinka inaad noqotaan qof walbo inuu noqdo safiirkii dalka inuu isaga waxbarashadiisa ku dadaalo midda kale oo iyadana muhiimka ah oo soomaaliduna runtii qabka weyn iyo baraayidka xoogaa dhinacna waa ku fiican yahan dhinacna wuxuu ku leeyahay cillado oo ah qofka ardayga waxaa la rabaa haddii maadooyinka qaarkood ku adkaadaan inuu flexibility la yimaado maadooyinkii kale u leexsan karo iyo siduu yeeli karo inuu yeelo kow labo haddii adiga ardayga walaalkaa Soomaaliyeed aad uga wanaagsan tahay maadada voluntary waqtigaaga 1 saac 2 saac xitaa inta u goyso oo aad la wadaagto runtii wax weyn ay taraysaa saddex waqtiyada imtixaanaadka kale inaad waqtiyo extra tuition inta dhaxdiin isu samaysaan runtii wax weyn bay taraysaa London baan joogay aniga waan arkay hadba bulshada ama community sida isugu xiran yihiin ayay waxbarashadooduna isugu xiran tahay adduunka meel kastoo tagto muxuu ah communityda isku xiran waa ka horumar badan yihiin kuwa kale tusaale haddaan usoo qaadano communitieska waxaa laga soo qaataa London oo kale muxuu ahaa yuhuudda runtii arrimaha waxbarashada iyo kama kaftamaan iyo isku xirnaantooda iyo midnimadooda waxaa kaloo ka mid ah hindida oo ayagana aad muxuu ah isu taageero isu dadaala qaarkood tuition fees inta la furo si free ah lagu bara ardaydooda Soomaalida UK joogta ayagana waa bilaabeen oo arday badan waxaan ogahay jaamacado dhigto waqtigooda freega siiyo Soomaalida kale inay wax ku bartaan arrimahaas oo dhan marka waxay keenaysaa dhaxdiinana in midnimadii iyo unity ka timaado isku xirkiina uu bato iyo inaad ka fikirtaan innovative ways oo aad idinkan wax isugu tari kartaan dalkana wax ugu qaban kartaan hadda gacal aad buu arrimo badan uga dhawaajiyay qasab ma dhammaan ardaydoo dhan inay hay'adihii dawladda la soo wada aado qasab ma in graduation wax lagu raadiyo kalsoonida muhiim ah wax walba qofkii ogaaw graduation wax ku raadiya isagana hadhow mustaqbalkiisa horumar ma gaarayo qof walba waxa la rabaa inuu isku kalsoonaado
meel walba uu geli karo iyo fikir innovation waa wax lagu horumariyo adduunka fikir cusub oo la keeno oo ganacsatada maaragtay ganacsi socon waayey loo sheego habku ku socon karo lagala shaqeeyo muxuu waalidka ood kala hadashaan waxyaalaha ay jeclaan lahayn inay sameeyaan haddii dhaqaale ay saving haystaan sidii looga faa'iideyn karo arrimahaas oo dhan marka waa arrimo u baahan initiatives qof walba inuu la yimaado intaasaan jeclaan lahaa inaan kusoo koobo mar kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu